BBC Afrikada bari saacadu waa 2 duurnimo oo gow ah waxaad naga dhageysan kartaan mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo bogina internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo khamiis ah bisha July waa 23 sanadka 2020 idaacadan duhurnimana waxa idin soo jeedinaya anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah aqalka cad ee Mareykanka oo u codeeyay in meesha laga saaro xayiraadda safarka ee madaxweyne Donald Trump cilmi baarayaal u dhashay dalka Koonfur Afrika oo sheegay suuragalnimada inaanan la soo tabin kumanaan qof oo u dhintay fayraska corona gurmad degdeg ah oo la gaarsiin doono dadka ay saameynta ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle hadaba dadkaas maxay u baahan yihiin waxyaalaha marka hadda loo baahan yahay waa dhinaca hooyiga dadka laga kaalmeeyo arrinta caafimaadka u tahay markii fatahaada dhacaan waxaa dilaacaya malaria ama kaneeca dilaacaysa oo dadka dhibaato gaarsiinaysa dadka marka cuntada ay u baahan yihiin biyo nadiif ay u baahan yihiin qodobada ka soo baxay shirkii dhuusamareebna ma yihiin kuwa la filayay marka laga yimaado labo bog warmurtiyeed ku qoran la barbar dhigo 19kii iyo ilaa 22kii bishii Luulyo in la fadhiyay waxaad moodaa noocun hanjab ah laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo in intaas la wada fadhiyay qodobadaas oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimo oo ay wada jirka u soo saareen Xasan Sheekh Cumar iyo Cabdifataax Ibraahim Cagayare waxaana ka soo horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxay noo haysaa Fartuun Ismaaciil oo gurigeeda ku sugan mahadsanid Kawthar cirbixiyeenada Shiinaha ayaa ku guuleystay howlgal ay ku tagayaan meeraha Maaris Shiinaha ayaa dadaal ugu jira in ay noqdaan dawladda labaad ee dayax-gacmeed hawada sare u dirta qorshaha safarka ayaa waxa uu yahay in bisha February ee sanadka soo socda ay gaaraan meeraha Martian halka 2 ilaa 3 bilood kadib ay ku degi doonaan meeraha cas dacwad-oogayaasha Mareykanka ayaa ku eedeeyay qunsuliyadda Shiinaha ee San Francisco ku taala inay qariyeen baara Shiinaha u dhashay oo loo haystay musuqmaasuq dhanka warqadda dalku galka ah Tang Juan ayaa la sheegay inay qarisay xiriirka ay la leedahay militariga marka ay codsanaysay fiisaha wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa Washington ku boorisay in ay joojiso adeegsiga cudurdaar kasta oo ay u sameyso si ay u xakameyso u hanjabto ama uga taqalusto aqoonyahanada u dhashay Shiinaha ee ku nool Mareykanka dowladda Australia ayaa sheegaysa in ay la tacaalayso miisaaniyadii ugu badnayd tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka taasoo sabab u ah saameynta uu geystay COVID-19 boqolaal kun oo shaqooyin ah ayaa la waayay waxayna wajahaysaa hoos u dhac dhaqaale kii ugu xumaa abid muddo ku siman 10 sano Iiraan ayaa sheegtay in quwadaha shisheeye laga yaabo inay ka dambeeyeen waraaqadii ama weeraradii u dambeeyay ee la beegsaday xarumaha ku yaala dalkaasi afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in baaritaano dhowr ah lagu sameeyay weeraro noocan oo kala ah lala xiriiriyay waxa ugu yeeray dawladaha iyo kooxo ma uusan magacaabin dawladaha mana uusan cayimin goobaha rasmiga ah ee isku dayadaasi lagu weeraray ugu dambeynna madaxa isbaahaysiga muxaafidka ee baarlamaanka Yurub ayaa sheegay in la joogo xilligii laga fakari lahaa cunaqabatayn ka dhan ah Turkiga waxa uu iftiimiyay dhaqdhaqaaqa ciidamada badda ee Turkiga iyo diyaarin muuqata oo loogu talagalay shidaalka xeebaha ee ku sii jeeday bariga jasiiradda Rhodes warkiina waa inaga inta dib aan idin kugu celiyo Kawthar iyo qaybaha kale ee barnaamijka waa hagaagaad bay u mahadsantahay Fartuun Ismaaciil oo cudurka corona awgii gurigeeda inooga soo tibinaysay wararka caalamka ee BBC-da markana qaybaha kale idaacadeena duur wanaagsan mar kale dhageystayaal iga raali ahada meesha aan ku iri aqalka cad ee waa aqalka Congress-ka ee wadanka Mareykanka ayaa Arbacadii u codeeyay in meesha laga saaro xayiraadda safarka ee madaxweyne Donald Trump oo hore uga soo rogay dhammaan dadka ka imanaya dalalka Islaamka ee tagaya wadanka Mareykanka talaabadan ayaa u muuqata guul u soo hooyatay muslimiinta Mareykanka iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada rayidka Faarax Lamaane ayaa warbixintan nooga diyaariyay wararkaasi tallaabadan ayaa waxay u badan tahay inaan loo sii gudbin doonin aqalka sanadka ee xisbiga jamhuurigu ay u badan yihiin waxaana iminka farxad la dabaaldegaya sharci yaqaanadii ka soo horjeeday xayiraadda safarka ee u arkayay in faquuqid ay tahay
tani waa arrin taariikhi u ah muslimiinta ayay tiri Farxaana Khayra oo agaasime u ah qareennada muslimiinta oo ka mid ah kooxihii taageerayay sharcigan mar ay hadlaysay ka hor codbixinta. dhammaanba xubnaha xisbiga dimuqraadiga ugu jira aqalka Koongareeska ayaa taageeray codaynta sharcigan. waxaa iyaguna la codeeyay laba mudane oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ku dhiibtay codkooda, kuwaas oo kala ah Will Hurd oo Texas ka soo gala iyo Brian Fitzpatrick oo Pennsylvania laga soo doorto. aqalka cad horeba waxa uu muujiyay in sharcigan uu ka soo horjeedo bishii March. hadal qoraal ah ayaana lagu sheegay in ka noqoshada xayiraadda safarka ay waxyeello u geysanayso amniga qaranka ee Mareykanka. dood la qabtay ka hor codbixinta ayaa dimuqraadiyiintu waxaa si isdaba joog ah ay ganafka ugu dhufteen xayiraadda safarada ee madaxweyne Trump uu markii hore soo rogay bishii Janaayo ee 2017. waxay ku tilmaameen intaasi ay faquuqayso muslimiinta kuwaasoo soo gelitaankooda dalka in laga mamnuuco markii hore uu soo jeediyay Mr. Trump markii uu aqalka cad u tartamayay 2016. xayiraadda safarka ayaa saameynaysay 5 dal oo dadkoodu ay muslimiin u badan yihiin, kuwaas oo kala ah Iiraan, Soomaaliya, Yemen, Suuriya iyo Liibiya. waxaa iyagana xayiraadda ku jiray muwaadiniinta dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo qaar ka mid ah saraakiisha dowladda Venezuela iyo qoysaskooda. sharcigan haddaba marka laga yimaado xayiraadda safarka waxaa kale oo mamnuucayaa in aan dadka diimahooda lagu faquuqin marka ay raacayaan shuruudaha sharciga socdaalka, waxaana uu ka hor istaagayaa qaybta fulinta ee dowladda awood ay ku xadidi karto soo gelitaanka ay Mareykanka soo galayaan dadka qaarkood. ninka uu loolanka adag dhex mari doono Mr. Trump markii la gaaro doorashada madaxtinimada, Joe Biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga, ayaa isniintii waxa uu sheegay in maalin uun la qaadi doono xayiraadda safarka haddii isaga la doorto, waxaana uu hadalka ka jeediyey isu soo bax uu dad muslimiina kula hadlayay. mahadsanid Faarax Lamaane. haddaba dadka ay xayiraadda safarka ee Trump ay saamaysay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan oo ku magac dheer Xaynoosh Sanqool oo ka mid ah dadka qaxootiga ah oo in muddo ah xayirnaa. qadka telefoonka ayuu igu waramay isagoo ku sugan xerada qaxootiga Nakivale ee dalka Uganda. dareen ahaan aniga markaan waxaan u malaynayaa waxa weeye waa fiican tahay oo dareenkaygu waxa weeye ummadda xayiraadda in laga qaado Soomaaliyeed ee resettlementiga lahayd ee xeryaha qaxootiga yacni uu Trump ku bahadilay oo uu alaabadoodii iyo kiisaskoodii iyo waxoodiiba uu cancel ka dhigay in macnaha xayiraadda laga qaado oo horey loo soo siiyo waa wax fiican, waana aad iyo aad loogu faraxsana. ilaa meeqaad sugaysay dib u dejinta Mareykanka? waxaan sugayay ilaa iyo 12 sano. waxaan helay resettlementiga 2009 bishii shanaad baan helay. ilaa iyo intaasna process baan kusoo jiray. sidaas daraadeed waqtigii ugu dambeysay oo aan bixi lahaaye ahayd 2016 Trump baa soo galay. waxa ayaga anigu caafimaadkii iyo wax walba noo dhammaadeen oo dadkii macasalaameynay, guryahayagii gadanay, alaabadii gadinay, ari yaroo noo joogay aan gadanay, xoolihii oo dhan dadkii aan macasalaameynay. hadda codayntii way dhacday. haddii la baasmariyo oo xayiraadda la qaado maxay kaaga dhigan tahay? والله نصيبكنا كل ما بركان قيليني أنا وما إننا مسيطرين بلوني وراكان قرني وراكان لينا في تشكيل ولويسو جوابي وآديات يقول لنا نسوقني كرتان مولي هذا في كانتين هذا صدارتين هذا بسمتين أنت نسوقني كرتان مولي مركا وحوي أنا هالك مرة شبع نجر راعي هذا هذه حكايات لقاضو هذا ما قادت كل كان سوي وحلاتين دورو يكون يوري شوغين باقي هاي السعوديين دورو ما كان نقاله لكن مر والبوا هدي أنا لقاضي هدي دك كمان لقاضي وشعلنا إن حيرات دلنا قاعدة sidaad sheegtayba in muddo ah ayaad qaxooti ahayd oo aad sugaysay dib u dejinta Mareykanka, marka hadda ka waran niyaddii iyo jacaylkii aad u qabtay in Mareykanka aad aado ma jirtaa weli mise waad niyad jabtay? ما والله وحوي horta waxa ilaahay baa qoraa wax walba ilaahay dartiisa ku socdaan inaga ma asaabireen anigu waan sabray laakiin daxaaskii iyo familkii iyo caruurtii ugu weynaatay oo intay diyaar gareeyeen la yiri waad baxaysaan oo hadana la yiri wixii waa abar waxa weey halkaas boorasho xaqi reerkii ka yimid hadda reerkii way ka maqan yahay Nairobi wiiga aaday ya gabdhii way ka tageen wiilashii way la jooga inta waxa waa ilaaliya taariikhda ka ilaaliya wax kale ka ilaaliya hadalka su'aasha hada idaado oo hadalkiisa aan istiraado wax u sheegna hadalka kaliya ilaahay waxa weeye aad waxaad meesha noogu haysaa haddii Mareykanka dhacay haddii rajaki masiyay haddii mustaqbalka inta suuqay inay raadinaysa la waayay maxaan si sheegaynaa marka iyagii baan ilaaliyaa ma
waa hagaagkaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan oo ku magac dheer Xaynoosh Sanqool oo kamid ah dadka qaxootiga ah oo in muddo ah xayirnaa oo igu waramayay qadka telefoonka ee xerada qaxootiga ee Nakivale dalka Uganda. halkaad ka dhageysanaysaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waxaa walwal laga muujinayaa in kororka tirada dadka fayraska corona ugu dhimanaya dalka Koonfur Afrika ay aad ugu sii sareeyaan midda sida rasmiga ah loo shaaciyo. 24 saacadood ee la soo dhaafay 572 qof ayaa cudurkaasi u dhintay. hase yeeshee cilmi baarayaal ka tirsan guddiga cilmi baarayaasha caafimaadka ee Koonfur Afrika ayaa waxay sheegayaan in tirada dadka caadiga u dhinta ay ka sareyso sida caadiga ahayd oo waxa ay tilmaamayaan suuragalnimada in kumanaan qof oo cudurkaasi u dhintay aanan la diiwaan gelin. Faafahinta warkaasi waxaa soo akhriyay oo haatan stuudiyaha igula soo biiray Cabdifataax Ibraahim Cagayare Nawaran. Kawthar cilmi baarayaashan u dhashay wadanka Koonfur Afrika ayaa waxay sheegayaan in ay ogaadeen in uu jiro farqi laga walwalo oo ku saabsan dadka sida caadiga dalkaas ugu dhimanaya. ilaa haatan tirada rasmiga ah ee dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee la diiwaan geliyay ayaa dalkaas waxay tilmaamaysaa ku dhawaad 6,000 qof. hase yeeshee daraasad la sameeyay 10 toddobaad ee la soo dhaafay ayaa waxay muujinaysaa in 17,000 oo qof oo dheeraada ay dhinteen. arintaas oo ah wax aan caadi ahayn markii loo barbardhigo tirada dhimashada la diiwaan geliyay xilligan oo kale sanadkiiba. daraasadu marka Kawthar waxay tilmaamaysaa inay jirto 11,000 oo dhimasho oo aan dhinacna loo tiirin. cilmi baarayaasha waxay ku doodayaan oo ay ka shakisan yihiin in inta badan dadkaasi ay u dhinteen cudurkan COVID-19. dad ayaa waxa ay ku dhinteen guryahooda. sidoo kale waxaa jira xaalada aan la diiwaan gelin cudurkaasi ah. hase yeeshee sidoo kale waxaa jira walaac dhab ah oo ah in dadka Koonfur Afrika aanay tagin isbitaalada. sidoo kale sababaha la xiriirinayo waxaa kamid ah isbitaalada ciriiri ah iyo cabsi ay ka qabaan inay fayraska qaadaan. arintaas ayaa waxa ay ka dhigan tahay baa leeyahay in dadka kale ee qaba cudurrada dilaaga sida TB-da iyo HIV/AIDS-ka tusaale ahaan aanan haatan la dabiibi karin. aad baad u mahadsan tahay Cabdifataax. markana wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in maalmaha soo socda gargaar la gaarsiin doono dadka ay dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle ee degmada Afgooye iyo deegaanada ku hareersan. Cabdinaasir Cabdi Canshuur oo BBC-da waramay ayaa sheegay in 40,000 oo qof ay fatahaaduhu saameeyeen halka in ka badan 12,000 oo qofna ay biyuhu barakiciyeen. hadalka wasiirka ayaa imanaya xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu amray in wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay bixiso lacag dhan $500,000 oo wax looga qabanayo dhibaatada Afgooye. haddaba wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga arrimaha fatahaadda ee Koonfur Galbeed ayaa goordhaweyd qadka telefoonka igu waramay. roobab badan oo da'ay oo miyigaan ah ilaa 10 bari u dambeeyay socday. roobabkaas waxay saameeyeen degmada Afgooye iyo tuulooyinka ku hareeraysan. qiyaasaha iyo warbixinada aan soo aruurinay roobabkaas iyo fatahaadda waxay saameeyeen 6,850 qoys oo ah dad ka badan 40,000 oo qof. dadkaas ay roobabka saameeyeen 2,230 qoys oo kamid ah oo ah dad ka badan 12,000 ayay biyahaasi barakiciyeen oo guryahoodii ka baxay. marka khasaaraha soo gaaray dadkaas ma qiimeyseen? khasaaraha wuxuu isugu jiraa dadkaas guryahoodii sariirahoodii waxooda dhan biyaa galay, cuntada guryaha u taalay, maacuuntooda wixii oo dhan biyaa soo gala ayagoon diyaar u ahayn biyahaas. dhibaato badanaa ka soo gaartay dadka reer Afgooye tuulooyinka ku hareeraysan. ilaa shalayna waxaa warbixino naga soo gaarayaan degmada ku dhegan oo Walaweyn oo ciidana gobolka Shabeellada hoos tagta inay ku bilaabanayaan fatahaadaha. Afgooye waxaa lagu yaqaanaa ma caan ku tahay wax soo saarka beeraha ee dalka. marka khasaaraha intuu la egyahay والله خسارة وسامي بينها خير لك من واقع وحكلوا سامي وحياري دتك هيستين وكها الله بين أمر فاهم فوق له أيو نواس بالشر وكاني هذا محله باهي هي محله باهي دتك وحيو باهي عندي وحيو باهي قبات قريها مالكم الجار دتك أصاب بحنا دتك عسول ما دنمري تاجي قال ما وحيارها مرك حد لو باهي هي وعندنا صار لنا هوي دتك الله يكلم أرد عافات كسا أكتر مرك فتح هذا العام واحد الله عايا ملاريا أما كان عاد الله عيس ودتك دلوقتي جالسين dadka marka cuntada ay u baahan yihiin biyo nadiif ay u baahan yihiin biyahan kulihii iyo waxaas dhex galaya biyo fatahaadda wallahi xaalad bini'aadanimo aad u adag ka jirta degmada Afgooye. wasiir lama soo koobi karo dadkan waxyaabaha ay u baahan yihiin
40,000 oo qof ayaad sheegtay inay saameyn ka soo gaartay marka maxaad u qabateen wallahi ilaa hadda annaga waxaan sameynay dowladda koonfur galbeed ahaan aan kaashanayna dowladda Soomaaliya waxaan sameynay abaabulo badan iyada ka shaqeysa wafalka oo adeegyada bulshada qabta ayaan shirinay kulamo badan ayaan la todobada bari u dambeeyay wax yar oo cunto ah dad la gaarsiiyay waa jiraan cuntooyinka nafaqada leh oo ilmaha loogu talagalay aydan waa loo bilaabay dadaalka waa socdaa laakiin meeshii loogu talagalay iyo wixii baahida dadka ay qabeen weli si xoog leh loogama jawaabin waxaan kaloo rabaa in la hoosta ka xariiqo Prime Minister Soomaaliya Xasan Cali Khayre wuxuu ballan qaaday $500,000 oo lagu kaalmeynayo dadka fatahaadaha ay ku saameeyeen deegaanada Afgooye iyo Koonfur Galbeed marka lacagahaas aad sheegtay sideed ku xaqiijinaysaan inay gaaraan dadkan dhibaatada haysata إن شاء الله هرت العجها وحكون عندنا أكانك وزارة المالية كونفور قلبنا العجوا ترانسبارنت باشر وحكيجنا معمول قبل كجرا معمول دجما كجرا أنجا وزارة هومانيتيريان كأنجا أو وزيرك الرماء هومانيتيريان كونفور قلبنا أهنا قدوميها قديم فسحاب هير معمول قبل كونفور قلبنا وحالا شقيرنا معمولات قبل كدجما وحنا حكيجنا إن أنجا معمولات ولا شقيرنا ضد مدام أيجي أنجا بديان إن نسيد الله كلا دريان تصبح لوجر سيدي الله دي الله إن ضد كان وحي أوبدناين ضد حوك سنجري أو daruurigooda raadsan jiray marka waxaanad siinaysaan ma ku filan yihiin maya wallahi horta dadka bini'aadanka markii qofka uu gaaro heer uu in wax la siiyo gaaro noloshiisa horta hoos ay u dhacaysaa annagana kuma faraxsanin aadaan uga xunaa dhibaatada dadka soo gaarta waxyaalahana waxyaala yar gaar ah oo xaaladaas jirta looga gudbaayo insha allah waxyaalaha muhiimka oo in la qabto oo dowladda Soomaaliya beesha caalamka iyo maamulka si kaasho doo baan waxa kamid ah in waxaan xal waara loo helo wabiga meelaha uu ka soo fatahayo wabiga la nadiifiyo oo carrada iyo qashinka laga saaro si fatahaadahan u yaraadaan wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Canshuur ayuu kaasi ahaa oo ii warameeyay markana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay hadal ka jeediyay shirkii uu soo gabagaboobay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada Soomaaliya magaalada Dhuusamareeb sheegay in madaxda dalku ay dadaalayaan isagoo inta ku daray in kala aragti doonaanshaha madaxda ay tahay arin caadi ah balse muhiimadu tahay in la isku yimaado oo la wada hadlo madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidan yiri ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican buu ku socdaa waxba yaan la qalbi jabin mas'uuliyiintii dalku ugu sarreysanahay waxaan ka fakaraynaa danta guud yaan ka fakaraynaa danta shakhsiga ahna kulliba oo ku balan inaan ka tagno waxaan soo wadnana ma aha wax ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyo sumcadda Soomaaliyeed u daran noqon mayso insha Allah haddii la kala fikrad weyn yahay oo qof walba uu haysto fikir gaar ah waa caafimaad muhiimku wuxuu yahay in aan ogolnahay inaan soo imaano fikirkii aan waxa danta dadka ah ama danta dalka ah inaan ka shaqeyno baarlamaankana taasaan ka rabnaa iyaga naftigooda dowlad goboleedyada madaxdoodana waxaan ka rabnaa taas anigana dhexdaan u fadhiyaa oo waxaan ahay ilaaliyihii sharcigana isla markaasna siyaasad lagama tegaayo iyada naftigeeda waa in la helo xal siyaasadeed oo dadku ay ku qanci karaan in la helo marka mas'uuliyaddaasi waana wasaaradda kulligeen waa tahay haddaba qodobadaas ma yihiin kuwa la filayay Dr. Ibrahim Faarax Bulsaliid ayaa inala falanqeynaya Axmed sida aad afka ku dhufatay marka laga yimaado labo bog warmurtiyeed ku qoran la barbar dhigo 19kii ilaa 22kii bishii Luulyo in la fadhiyay waxaad moodaa noocun hanjab ah laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo in intaas la wada fadhiyay oo khilaaf iyo kala tag banaanka ku soo dhaca aanu dhicin ba guusheeda leh laakiin waxaad moodaa in wixii la filayay aanay meesha ka soo bixin qodobka afraad oo kale markaad eegto iyo ka shanaad baa ugu muhiimsan warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii labada qodob ee mid uu leeyahay waxa lagu heshiiyay isla meel dhigeen madaxdu inay doorasho dhacdo iyo ka shanaad oo ay leeyihiin waxa lagu heshiiyay in la sameeyo gudiyo farsamo oo ka kooban labada dhinac labada qodob ma la oran karaa waxay sheegayaan sidaad horeba carabka ugu dhufatay in aan wax heshiisa meesha lagala soo kicin qolo waliba ay mowqifkeedii taagan tahay gudigan la sheegayo maadaama goorta la sameynayana aan la sheegin inuu wuxuba iska afgobaadsiin yahay Axmed jawaabta saxda ah waa haa shirka waxa looga wada hadlay si guud marka la fiiriyo xaaladda siyaasadeed ee dalka mid amni iyo mid dhaqaale laakiin duruucda markaad fiirisid waxa si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka marka
marka aad si saaniya u fiirisid 8daas qodob waxa ugu muhiimsaneed qodobka 4aad oo isna ay su'aal ka iman karto iyo ka shanaad laftigiisa ay su'aal ka iman karto oo ah doorasho waqtigeeda ku dhacda oo lagu wada qanacsan yahay ma nooca xukuumadda dhexe ay rabtaa oo qof iyo cod ay leeyihiin 8 bisha Febraayo ee 2021 kan qabanayna hadiyada ah oo doorasho farsamaysana qodobka shanaad si la mid ah ka lixaad su'aasha ka imanaysa waxa weeyaan guddigii oo aan la samaynin ma hadda la samaynaya mise marka 2 toddobaad kadib la isu yimaada la samayn doona kasoo baaraan degid iyo talooyin la xiriira hanaankii habsami u socodka doorashooyinku ay madaxdii dalka ugu sareysay talo ay 4 cisho goyn waayeen guddiga goyn kara xagee jooga marka waxaad moodaa in 8 qodob oo qurux badan oo laba bog lagu xardhay uu iska yahay uun afgobaad. ibraahim faarax buursaliid ayuu ahaa oo inala falanqeynayay qodobada ka soo baxay shirka Axmed Nagaasho ayuu u waramayay markana baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Faysal Bishaar Aligo. Faysal mahadsanid Caasha. xaliimo cabdi daahir cali oo joogta Kismaayo waxa ay baafinaysaa Fartuun Cabdullaahi Cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xaliimo cabdi daahir cali iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. xaliimo cabdi daahir cali oo joogto Kismaayo waxay baafinaysaa Daawud Cabdi Daahir waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mareykanka haddaba haddii uu maqlayo Daawud Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaliimo cabdi daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo. deeqo cumar muuse oo joogta Kismaayo waxa ay baafinaysaa Dayib Cumar Muuse waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Canada sanadii 2017 haddaba haddii uu maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo deeqo cumar muuse iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. rooble yaasiin cali oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa xalimo yaasiin cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Mareykanka 2017 haddaba haddii ayna maqlayso xalimo yaasiin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo rooble yaasiin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. warsan abshir yuusuf oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Yuusuf Abshir Yuusuf waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 2016 haddaba haddii uu maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo warsan abshir yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Siciid Muuse Xareed oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa dadkii kale ah Abshir Muuse Xareed iyo Maxamed Muuse Xareed waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Mareykanka haddaba haddii ayna maqlayaan Abshir iyo Maxamed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Siciid Muuse iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Maxamed Abdiraxmaan Maxamed oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Cabdixakiin Cusmaan Muuse waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mareykanka haddaba haddii uu maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Maxamed Abdiraxmaan Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Cabdixakiin Maxamed Cusmaan oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Kowsar Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Cusmaan Samatar waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Australia 2017 haddaba haddii ayna maqlayaan Kowsar iyo Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Cabdixakiin Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Cabdisamed Cali Muuse oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Dahabo Cali Muuse waxa ugu wardambeysay iyadoo joogta dalka Mareykanka sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Cabdisamed Cali Muuse iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Xamzata Axmed Geelle oo joogta Qoryooley waxay baafinaysaa Xamdiino Cali Geelle waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Talyaaniga 2003 haddaba haddii ayna maqlayso Xamdiino Cali Geelle ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Xamzata Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Marko. Zakariya Cabdi Axmed oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa dadka kale ah Faadimo Cabdi Axmed iyo Mustafa Yuusuf Cusmaan waxa ugu wardambeysay dalka Canada haddaba haddii ayna maqlayaan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Zakariya Cabdi Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Falxays Xasan Cadow oo joogto Janaale waxay baafinaysaa
ladan xasan cadow waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga 2001 haddaba haddii ayna maqlayso ladan xasan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo falxiis xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko mulki dayib xuseen oo joogta kismaayo waxa ay baafinaysaa dadka kale ah xuseen dayib xuseen farxiya maxamuud yuusuf waxaa ugu wardambeysay dalka maraykanka sanadii 2018 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo mulki dayib xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo maxamed cabdulle axmed oo jooga walaweyn waxa uu baafinayaa xaawo cabdulle axmed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan kenya 2000 haddaba haddii ayna maqlayso xaawo cabdulle amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo maxamed cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko xasan cumar maxamed oo jooga ireland waxa uu baafinayaa cumar maxamed cumar waxaa ugu wardambeysay dalka kenya sanadii 2000 haddaba haddii uuna maqlayo amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xasan cumar maxamed iyadoo wixii warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo xasan maxamed cumar oo jooga yumbis waxa uu baafinayaa milyuun cali cumar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Zambia 2004 haddaba haddii ayna maqlayso milyuun cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xasan maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko bakan maxamed yuusuf oo jooga Ireland waxa uu baafinayaa maxamed yuusuf cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Uganda sanadii 2001 haddaba haddii uuna maqlayo amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo bakan maxamed yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo ibraahim xasan salaad oo jooga walaweyn waxa uu baafinayaa cabdi ibraahim xasan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan maraykanka 2004 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo ibraahim xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko yuusuf cumar xasan oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa xaliimo cumar xasan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka kenya sanadii 1990 haddaba haddii ayna maqlayso amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo yuusuf cumar xasan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo nuuliya axmed jeylaani oo joogta afgooy waxay baafinaysaa cawooy xasan jeylaani waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan talyaani 1995 haddaba haddii ayna maqlayso cawooy xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo luuliya axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko xamza mursal ismaaciil oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa cumaari ismaaciil waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka ingiriiska sanadii 1999 haddaba haddii uuna maqlayo amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xamza mursal ismaaciil iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay ee kismaayo ama telefoon nambarkiisu yahay 25 26 16 88 87 xaawo cali isaaq oo joogta marko waxay baafinaysaa samiiro cali isaaq waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan talyaaniga 2012 haddaba haddii ayna maqlayso samiiro cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xaawo cali isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko xamaadi xasan maxamed oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa dadka kale ah khadiija xasan xamaadi iyo miima xasan xamaadi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka kenya sanadii 1999 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo xamaadi xasan maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay ee kismaayo saabriin cali axmed oo joogto walaweyn waxay baafinaysaa nuur jeylaani axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan talyaaniga 2000 haddaba haddii uuna maqlayo nuur jeylaani amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo saabriin cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 eber 6 cabdinaar nuur oo joogo kismaayo waxa uu baafinayaa dadka kale ah naasir nuure cali hamaadi nuur cali waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Australia sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdinaar nuur iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo mukhtaar xasan axmed oo jooga baraa waxa uu baafinayaa shamso cali warsame waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan jarmalka 2008 haddaba haddii ayna maqlayso shamso cali amaba ay
jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo mukhtaar xasan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko. jeylaani moxamed bakar oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa dadka kale ah casmaan muuya miguwa salma hamaa waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka maraykanka sanadii 1999kii haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyey jeylaani moxamed bakar iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo. jeylaani maxamed bakar oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa cabdiqaadir daahir waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kenya 1998 haddaba haddii uuna maqlayo cabdiqaadir daahir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo jeylaani maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo. jeylaani moxamed bakar oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa shindala chibangu muhini waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka kenya sanadii 1996 haddaba haddii uuna maqlayo amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyey jeylaani moxamed bakar iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay majuma cumaari oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa sidana cumaari waxaa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan UK 2000 haddaba haddii ayna maqlayso sidana cumaari amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo majuma cumaari iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo. baafintiina maanta waa naga intaa. caaisha iyo faysal oo ay ku mahadsan yihiin barnaamijkaasi baafinta idaacaddeenii duhurnimona waa naga intaa waa inoo 5 galabnimo ee nabadgelyo.